السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا جنالك منير ميرسي كحيران سو دوادا ولكن منير ما أنتو حان كهذا دونا موضوع مهم موضوع آد مهم وخوف كستو ومؤمن ومسلم على قربه إنه كفائدستو كنا براروغو شغل بدنا نسويسا هول بدنا نسويسا وحاب اللعبتي بشي ذو الحج وحان كل حجرنا ما أنت وحكا بلاوات توينكي بري ama tobanka beri ugu fadli badan dunidan ama maalmaha ilaahay tobanka beri ee ugu fadli badan nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa noo sheegay wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ma min ayaamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam qalu ya rasul Allah wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika بشيء taasoo ay macnaheedu noqonayso ma jiraan maalmo amal wanaagsan la sameeyo oo ilaahay ka jecel badan yahay maalmahan oo tobanka bari ee maanta bisha koow tahay yaani asxaabtu waxay weydiiyeen xataa jihaadka nabiga wuxuu yiri xataa jihaadku way ka fadli badan yihiin ilaa qof baxay jihaad aaday oo yaani nafsidiisa iyo maalkiisa soo huray waxana aan yaani kala soo laabanin yaani qof baxay jihaadkii aaday oo wax kasto oo nafsidiisa imaalkiisana jihaadkii ku bixiyay kadib maadaama maalmahaas ilaahay sidaas u weyneeyay nabi maxamedna uu kaga hadlay xataa jihaadka ay ka fadli badan yihiin markii laga reebo qof nafsidiisa iyo maalkiisaba jihaadka ku bixiyay kuna soo geeriyooday waxba aan kala soo laabanin maadaama fadligaas nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku sheegay ilaahayna uu ku dhaartay wuxuu leeyahay wal fajri وليال 10 والفجر بان كدارتay fajri iyo وليال 10 tobanka bari idil hijja marka maalmahan waa maalmo aad ilaahay fadli badan siiyay maxaa marka sameeynaa waa maalmo aan mashquul sannahay waa maalmo aan ku mashquulsannahay ama aan ku mashquuli doono cibaadada amalka saalix muxuu isugu jiraa salaadaha waajibka sunooyinka salaatul leylka soonka wali maalinta 8 ama 9aadka oo la soomo qofkii ay u suurta gashay inuu soo xajiyeen waa cibaadada ayuu ku dhex jiraa qofkii ay u suurta galin soon sadaqo ayaa laga rabaa amal wanaagsan yaani bir walideyn qaraabada la xiriiriyo iyo wax kasto wanaagsan oo amal wanaagsan ah sadaqadu waa muhiim ayadana waa qayb kamid ah amalka wanaagsan in aad wax baxsato dadka masaakiinta aad wax ku sadaqaysato yaani dadka agoomada aad dharciidka u gado yaani aad ka farxiso qof kasto markaasi aan u baahan in wax lagu sadaqaysto inaad wax ku sadaqaysato oo xoolahaaga wax ka bixiso maalmaha inta lagu jiro adoo ka faa'iideysanay marka amalka wanaagsan ee aad sameynaysid maalmahan fadliga ilaahay gaarka siiyay maalmaha kale ee ilaahay ka fadli badiyay toban baraarujinayna oo ku soo gabagabeynaya mawduuca in aan ka faa'iideysano maalmahan wanaagsan inay tobanka bari ay maanta kooda tahay oo aan kaga faa'iideysano amal wanaagsan شرقرية أصحابتنا وشرقرية سيقول فائدستان معلومها توانك بريئة وشرقرية واتساب وشرقرية ملكست وشرقرية مقالكة لايك سارة سبسكرايب لها جنال كسي إذن سو قاران وحوالبو عن سوق دلينو جنال كان وما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله